wuxuu jarjaray meedkooda kadibna wuxuu ku riday bac waxayna ku jireen 10 sano finijeer qaboojiye ah oo markaas isla gurigii markaasi qofka dhibanaha ama qofka dilka loo geystay uu deganaa. Kaaga sii darane 10kan sano qof tabtay ma jirin. Qofkan inuu maqan yahay, inuu nool yahay, halka uu jiro iyo halka uu markaasi ku maqan yahay. Dadka dariska ah, familka iyo dad kale oo ay asxaab yihiinba ma aysan ogeyn mana ku baraarugsaneen qofkan meedkiisa inuu markaasi uu ku dhex jiro gurigiisa weliba qaybta finijeerka qaboojiyaha. Waxaa kaloo la yaab ah ninkan warqad walba u soo dhacdo waxa markaasi meesha ka bixi jiray isla qofkii u geystay dhibkan. Sidoo kale ku darso lacagta kaarkiisa iyo wax walba oo qofkaas lahayna isaga ayaa isticmaali jiray 10kaas sano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta dhabaatiina soo dhawaada.